dowladda Ethiopia ma waxay noqon doontaa dowladdii ugu horreysay ee Afrikaan ah ee Israa'iil dabadeed intiraafta Somaliland waa maxay arrimaha waaweyn ee la karkarinayay maalmihii la soo dhaafay gaar ahaan wixii intiraafka Israa'iil ka dambeeyay 26 bishii 12 sanadkii iminka tagay 2025 xaraarad intee leeg ayaa lagu karkarinayaa waa maxay se arrinta la sheegay ee biya kama dhibcaanka ee uu sugaya ra'iisul wasaaraha Ethiopia inta uusan go'aanka kama dambeynta qaadanin barnaamijkan ayaad ku dhageysan doontaa ama ku daawan doontaa haddii alla yiraahdo waa maxay qorshaha dowladaha Djibouti Turkiga Sacuudiga Qatar iyo Soomaaliya ay leeyihiin iyo waliba kan kale ee la sheegay ee kaas lidka ku ah ee Imaaraadka AIPAC iyo Israa'iil la yiri way ka wada shaqeynayaan xagee ayuu Donald Trump ka taagan yahay labadan group oo iskhilaafsan haddii intiraafkan uu suurto galo Ethiopia ay ku dhawaaqdo madaxweynaha jamhuuriyadda Dr. Xasan Sheikh Maxamuud legacy noocee ayuu ka tegayaa oo lagu xasuusanaya isku soo noqod wanaagsan khiyaaray meel kastoo aad dunida ka joogtaan haddaba aynu ku durdurinaya marka ugu horeysa tan iyo intii Ethiopia yiraahdee ayaa waxa la sheegay warar kala duwan oo aad isku soo taraya in ay aad iyo aad u karkarinaysay go'aan masiiriya inay ka qaadato inay dhabaha Israa'iil ay martay iyo in kale ay marto halkaas ayay Ethiopia u joogtaa ayadoo horey ugu dhiiratay hadda ka hor inay dhaqaaq samayso haddana waxaa la leeyahay maanta maalin ay Ethiopia fursad ay haysato oo kale ay soo martay ma jirto oo waxay haysataa Israa'iil oo ay ku daba gabato diyaarna waxay u tahay inay go'aankan ay qaadato haddaba maxaa dab ka saarnaa oo karayay Ethiopia markii aragtay ayaa la yiri tilaabada ay Israa'iil ay qaaday ayay go'aan ku gaadhay iyaduna inay dhabahaas ay marto ayna noqoto dowladdii ugu horreysay ee markaas heshiiska midowga Afrika u yaala ka hor yimaada oo jabisa inay noqoto oo markaa danteeda ay ka raacato xuduudadii gumaystuhu uu ka tegay in aan la burburinin ayay Afrika isku waafaqsan tahay maxaa yeelay waxaa jira wadamo kale oo fara badan oo doonaya inay kala go'aan oo aan la doonayn markaas inay sii kala burburaan Ethiopia waxay haatan u bareertay ayaa leeyahay inay arrintaa ka soo horjeedsato waxayna Ethiopia iyo Somaliland ay noqdeen ayaa la leeyahay xiriirkoodii hore mid ka weyna oo sii hana qaada ayuu noqday kadib markii Israa'iil ay intiraafka ku dhawaaqday iyo wixii ka dambeeyay heshiiskan ay isku soo dhawaashahan ayaa waxa lagu macneeyay wajiyo badan mid leh wajiyadaas badan oo leeyahay ayaa daawadayaal waxa la sheegay inay ka mid yihiin Somaliland ay yiraahdeen Ethiopia waxay haysataa wax Somaliland ay u baahan tahay Somaliland waxay haysataa waxaysan Ethiopia ka maarmi karaynin sida Ethiopia u aragto kuwaas oo kala ah Ethiopia inay intiraaf karto Somaliland oo si bareer ah u intiraaf karto dabadeedna cirro maadaama uu ku guuleystay xaydaabkii ku gudboonaa intiraafka ee cid ka jawaabta la waayay 34 sano Israa'iil maadaama ay ka jawaabtay Afrikana inay noqoto tii labaad ee ka jawaabtay Ethiopia halkaas oo cirro albaabkaas jabsho marka Ethiopia intiraafkii ayay gacanta ku haysaa oo waxay awoodaa inay intiraafto regardless the consequences waxa uga imaanaya ayadoo u bareeraysa maalgashi iyo waliba galaangal siyaasadeed inay u samayso intiraafka baadigoobka Somaliland inuu Afrika inteeda kale iyo wadamada Ethiopia saaxiibka ay la tahay ay markaas ku sii fidaan oo maxaa loola jeedaa Ethiopia waxaa jira ama wadan walba sidaynu ognahay wadamo uu saaxiib wadankaas leeyahay oo markaas siyaasad dhaqaale iyo arrimo amni ay ka dhaxeeyaan oo ay markaa wax isweydaarsadaan inay markaas u suuq tagto ay tiraahdo dhabaha nagu soo raaca ayay Ethiopia awoodaa xaruntii dhexna waa tan ku taala waayahay haddaba ikhtiyaarta sharafta iyo kalaamada leh Ethiopia arrimahaas ayay haysaa Somalilandna way ogtahay Somalilandna waxay haystaa badhi casayd ayay haysataa oo Ethiopia ay baadi u qabto marka waxa isbiirsaday ayaa la leeyahay labadaas baahi oo la doonaya in la isweydaarsado isla mar ahaantaasna waxa u hiiliyay leeyahay waqtiga ayaa u hiiliyay
waqtiga arrintan ay ku soo beegantay ictiraafka Israa'iil ayaa arrintan keenaya iyo Ethiopia oo dekad aan haatan haysanin tii dalka ee la jeeyana xaaladeeda aynu ognahay in cawda loo jaray haatan Djibouti ay ku tirsantahay laakiin Djibouti dib ayaan uga imaan doonaa waayahay haddaba arrintaanu arrin caadifad ama laabalakac ku saabsan ma ahan ama ideology ku saabsan Somaliland iyo Ethiopia waxay doonayaan inay sameeyaan caadifad iyo laabalakac midna kuma saabsan ayaa la yiri balse waxa ay ku saabsan tahay ayaa la yiri dan joogta ah oo labadoo xukuumadoodba ay leeyihiin ayna doonayaan in ay markaas isweydaarsadaan wax si ay markaa labadooduba riyadooda uga dhameeyaan Soomaaliya dhabarka ay uga jabshaan iyo waliba Djibouti oo aan sheegayba aan goorna u imaan doono time could not be more important waqtiga arrintaanu ay ku soo aaday ayaa waxaa la yiri waa waqtiga ugu munaasabsanaa ee fursadan ay samayn karaysay Ethiopia haddaba daawadayaal halkaa bareega wax yar igu hay adigoo mahadsan ma doonaysaa inaad noqoto software engineer xirfadlaha adigoo jooga gurigaada isla markaana adeegsanaya internetka oo keli ah leedahay riyo ah inaad la shaqayso shirkad caalami ah ma doonaysaa inaad xirfadaada dhisto adigoo adeegsanaya internetka oo keli ah ma doonaysaa inaad ka mid noqoto qayb ka mid ah isbeddelka digitalka adduunka fast track technology academic ma ahan oo keli ah maxad wax lagu barto ee waa goob soo saaro arday tayo sare leh oo ka dhex muuqata waayahay haddaba timinka ayaa u hiliyay waqtiga arrintan ay ku soo aaday ictiraafka Israa'iil Ethiopia waxay u aragtaa now or never maanta ama inaysan weligeedba arrintan u dhicin ictiraafka maanta ayuu kuugu dhow bad inaad heshid maanta ayuu kuugu dhow yahay Soomaaliland waxay leedahay maanta ayaad albaabka Afrika jebin kartaa si markaas arrintu ay u noqoto tusbax go'ay oo meel waxba laga soo qaban karin ay u gaadho Ethiopia tusaale kale haddana daawadayaal idin siiyo ama idin xasuusiyo horay ayay isugu dayday iyadoon Israa'iil sawirkaba markaas aysan ku jirinin ay ictiraaf wax lagu dhawaaqay aysan jirinin 2 sano ka hor ayay Ethiopia madaxweyne Muuse Biixi waxay la saxiixatay MOU-gii sida xasuustaan koodii bishii koobaad sanadkii 2024 markii Ethiopia markaa ayay isku dayday inay madax banaanida iyo gobonimada Soomaaliya ay gorgoriso waynu ogeen arrintaas meeshay ku dhamaatay madaxweyne Sheekh Xasan Sheekh Maxamuud eriga dhul uu ka dhacay Erdogan oo arrintii ku soo biiray dabadeedna arrintaas meesha ay ku dhamaatay kulligan waanu wada ognahay marka Ethiopia iyo Somaliland waxa ay leeyihiin now or never maanta ama weligeed arrintan u dhici mayso waa in laga miro dhaliyaa wararka hoose Ethiopia ka soo baxaya ayaa dhanka kala daawadayaal waxa ay sheegayaan Abiy Ahmed arrinta weyn ee uu haatan sugayo go'aankii waa qaatay ayaa la leeyahay code and code laakiin arrinta uu sugayo haatan ee biya kama dhibcaanka waxay tahay ayaa leeyahay in madaxweyne Ciro uu ka soo noqdo markaas socdaalkiisa ama safarkiisa uu ku tagayo uu kula kulmayo hogaamiyaha Israa'iil Benjamin Netanyahu marka uu soo noqdo Ciro waxa ku xigi doona code and code waa sida hadalka loo dhigay in ay markaas ay xaqiiqsato ay ku dhawaaqdaan ilaahay dawladda Ethiopia ay ku dhawaaqdo in ay markaa intiraafto Somaliland ay intiraafto arrinta uu sugayo waa taas arrintan afkay ka xiran tahay Ethiopia go'aan bay qaadatay shirar waaweyn bay ka gashay hadafkeeda iyo goolka Ethiopia waxa uu yahay in ay hesho saldhig military oo iyadu ay maamusho Somaliland aysan maamulin Soomaaliya aysan maamulin Djibouti aysan maamulin iyagu ay maamulaan haddaan xasuusatid waxa ay soo bandhigeen inay lahaayeen waxaynu doonaynaa secure corridor annagu meel aan maamulno aan cidna u daba fariisanin marka ciddii shaki kaga jirto Ethiopia inay saldhig military iyadoo madax bannaan tahay waddo ay rabto way riyoonaysaa maxaa yeelay Ethiopia dekad ay wax kala soo degto way haysataa Djibouti iyo waxay haysataa Berbera labadaba laakiin waxay rabtaa Ethiopia labadaasba inay ka madax bannaanaato iyadoo meel ay hesho this is where the interaf becomes important for Ethiopia waayahay haddaba arrintu halkaa haddii ay marayso su-aashu waxay tahay Abiy Ahmed bad inuu helu doonayaa maanta maalin oga dhowda u arkaana ma jirto aynu ka gudubno what about Djibouti madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele waa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele madaxweyne siyaasi hore sirdoonka uga soo shaqeeyay khabiir siyaasadeed hadduu jiro oo geeska oo markaas khibradiina leh aqoontiina leh
وأصدق أيال ليه وحنا الله أبوغدان ماشي لقى سو مليجينا برهرة أيو أركي أي أبوقتي أيال ليه أو وان جرانية عدة أرمها دروال كدب بين وغير من دونه haddaba su-aashu waxay tahay ismaaciil cumar geelle muxuu samayn karaa oo arrintan kaga hortegi karaa intiraafka khubaradu waxa ay leeyihiin ismaaciil cumar geelle saaxiibo iyo galaangal ayuu leeyahay oo dowladda faransiisku ay ka mid tahay dowladaha degan dhulkiisa sida shiinaha maraykanka ayuu la hadli karaa oo dhihi karaa arrintan aniga ayay khatar igu tahay ana dhabarkan idiin xoqoyaa idinkuna dhabarka iyo meelahan gaarin iyo xoqa arrintaana ha layga joojiyo ayuu oran kara ayaa leeyahay ogolaangalkaas ayuu leeyahay sidoo kale African Unionka laakiin marka African Unionka Djibouti iyo Ethiopia ay timaado waxaa leeyahay Ethiopia ayaa markaa saameynta ugu badan ku leh marka labada wadan la isu barbar dhigo ma ahan aniga hadalkayga I'm just quoting you get it marka tillaabooyinka waaweyn oo uu qaadi karo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle at this point in time waxaa la leeyahay waa unclear weeye laakiin yaan shaki ka gelin Ismaaciil Cumar Geelle kaararkiisa inuu ciyaarayo asaga laftigiisu uuna arko Ethiopia meeshay u socoto imaaraadku waxa uu damacsan yahay intiraafka Soomaaliland wuxuu ugaga dhigan yahay iyo saameynta impactiga dhaqaale kan siyaasadeed iyo leverage-ka tooska ay Djibouti ku leedahay intaasba way u muuqataa madaxweyne xasan sheekh maxamuud muxuu ka tegi doonaa oo legacy hadday arrintaanu suurto gasho su-aasha kale oo garab taalla waxa ay tahay haddii arrintan Ismaaciil madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku guuleysto sidii kiisaskii hore badda inaysan suurto gelinin sida Soomaalidu taariikhda wuxuu noqon doonaa geesiyaashii soo maray oo kale oo sidii taalooyinka loogu dhisi karo ayuu noqon doonaa nin taalo loo dhiso ayuu noqon doonaa ayaa la leeyahay waayahay haddaba intaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud u guda gelinin iyo meesha xaajadu ay taalo waxaa noo soo socda Turkiga imaaraadka Sacuudiga Djibouti iyo imaaraadka iyo AIPAC iyo Israa'iil oo isku dhinaca iyo Donald Trump oo meesha timihiisa u xiirmayaan cid haba yaraatee garan karta aysan jirinin soo dhawaada Nairobi Bombas hadda waxaan taagana gurigii Nairobi aan ii sheegin in mardo bilaabanay excavationkiisa waxaa arkaysaanba waa makiinadii ama maaragta cagaftii gurigan insha Allah shaqadiisa way bilaabanaysaa qoditaankiisa muuqaalada qoditaankana iyo shaqadiisa u socota update waan soo sii doonaa fursadaha ka socda Nairobi Bombas guriga Suusi guriga Nyali labadaba way socdaan dad badan way ka faa'iideysteen walaalaha ninkana ina ka faa'iideysan doontaan ayaa rajeynayaa gurigan waa guri casri aad loo naqshaday Turk system guri aad facilities u sareeyo wax badan oo facility u leeyahay supermarket cafeteria iyo pharmacy iyo meesha carruurta ku ciyaara playgroundkii sitting area inta uu leeyahay basementkii baabuurta gelahayeen uu leeyahay madrasada carruurta ku barlaay masaajidkiina guriga inta badan way leeyihiin sida guriga Mombasa gurigan waxaan ugu talagalnay dadka walaalaha qurbaha jooga inay ka faa'iideystaan qofka Soomaaliyeed danayna inuu guriga gato ama iibsado shirkadda Qibla Homes uu la soo xiriiri karaa insha Allah anagana waxaan sameyn doonaa baacdiisi soo dhameeyay haddii Ilaahay yiraahdo ka faa'iideyso fursad jirto soo waca nambarkii waa kaas aad u baahantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وهاجا خياري آدي أنا كوم هذا علني بقول كيو بقول ما كسر الدنيا كجوكتان أينو حتى بقى أجنى مدحوين حسن شيخ محمود هدي أينو أجنى أنت أنا نقول ذكرين وحكي لو واحد ضروري إن أنا أجنى حالات الجودها كجرت الصومالية ما أنت تاجن أوباهن أيضا رفتجاد إن أنا شيش كسرنا وأمركم جوهر يسوي حنوجنا هاي صوماليا أوركان أرجع سدا كجرا على الشباب اللي هذا يصاحب بضو ذكرها inay caqabad weyn ay ku yihiin in dowladnimada Soomaaliya ay cagadigato oo Soomaaliya mar laga talaalo argagixisaa joogta iyo qarax baa ka dhaca waa arrin u baahan Soomaali oo dhan inay ka hawlgasho oo laga qabto nimanka ummadda Soomaaliyeed doonaya inay dhiigooda jaqaan habeen iyo maalin ay ummadda halaagaya khilaafka waxaa jira haddaba nimankaas dagaalka ku haya oo dowladnimada inay cagadigato inkastoo meel fog laga keenay oo maanta meeshay marayso marka la eego loo eego 15 sano 20 sano ka hor ay tahay kaaf iyo kala dheeri rajo weyn ay muuqato haddana ururkaas ayaa jira gudaha ee Soomaaliya waxa ka jira khilaaf siyaasadeed oo baahsan hadday ahaan lahayd mucaaradka iyo madaxweynaha kan u dhaxeeya iyo hadday ahaan lahayd labada maamul goboleed ee darfaha ee Puntland iyo Somaliland Puntland iyo Jubbaland loo jeeda hilmaan hadal kuma jira oo ayaga laftigoodu khilaaf ba'an oo ka dhaxeeyo dad fara badan waxay ku eedeynayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud
waase iyagu hadalka u dhigeen inaan waxba xiirinayn inuu yahay isla mar ahaantaasna cidna loo joojin maayo uu leeyahay habeen iyo maalin ra-iisul wasaarihii booskaas buuxin lahaa oo maamul goboleedyada iyo isu keeni lahaa dowladda dhexe oo u kala dabqaadi lahaa oo ka odayn lahaa oo midba cimaamad saari lahaana sidii ra-iisul wasaarayaashii hore dalka soo maray waxa uu noqday ayaa leeyahay waa sida hadalka loo dhigay nin aan markaas isagu cadkaas aan goyn karaynin sida dad fara badan oo halkan iyo meelo kale wax ka falanqeeya ay leeyihiin annaga aragtideena maahan wax aragtiyo ka leenahayna ma jirto haba yaraatee waa yahay dhinaca kale daawadayaal waxaa leeyahay hay-adaha dawliga ayaa iyagu ah kuwa aad iyo aad u liita 25 sano lasoo dhaafay Soomaaliya waxaa laga dawaday mashruuca yarka ee marnaba inuu hana qaado aan rajo laga qabinin ee loo yaqaano capacity building in dowladnimada la naaxiyo goormay naaxaysaa 25 sano waxay dadku u arkaan arrin Soomaalinimada gaf ku ah kartida Soomaalida wax qabadkooda hal abuurkooda gaf ku ah in 25 sano laga daboodo maalinta falxalka adduunka maalinta dadka cawaran maalinta dadka qoyar socodka maalinta dadka aan cadayan laga daboodo iyo waxa la midka oo dadkaanu aysan aayatiinkooda u madax banaanayn ama aysan u tashan karaynin marka hay-adihii dawliga ahaa waa week haddaan tusaale ku siiyo markii dagaalku uu socday ee madaxweynuhu hogaaminayo gobolada dhexe uu joogay al-shabaab maalin walba geedkay galaan waa laga saarayay kabtooda ayaa la gooyey cagaha ayay wax ka dayeen ayaguna dhibaatadooda ma yarayn laakiin wiilasha Soomaalida halyeeyada ah oo madaxweynuhu hogaaminayay ayaa afka ciidda u daray markii madaxweynuhu Muqdisho dib ku soo noqday dagaalkii waa banjaraya meeshiisu joogsanaya sababtuna waxay tahay wasaaraddaas gaashaandhigga cid aqoon u leh karti u leh oo dagaal taqaana ma jirto ninka hayay ee daroolka markaa ka ahaa weligii sarkaal ma noqonin dabla ma noqonin qalab ma qaadanin marka waa ninaan awood u lahayn ama awood iyo aqoon midnaba aan u lahayn iyo khibrad inuu hawshii wado marka arrintaas waxay keentay inay arrintii joogsato institutionada kale ama hay-adaha dawliga kale oo dhan kulligood Soomaaliya waa saas oo waxa la leeyahay dadka darawalka ka ah ayagu ma aha dadkii ehelka u ahaa ee ka mira dhalin lahaa hadday mararka qaarkood ay jiraan dad yaqaanaano uma madax banaano oo wax walba madaxweynuhu wuxuu ku wadaa macro management waxa la yiraahdo wax walba asaga ayay ka go'aan asaga ayaa loo daba fariisanaya macro management laba waxyaalood ay sameeyay ayaa jirta waa mid waxay dishaa waxa loo yaqaano creativity-ga hal abuurka iyo qofka waxa loo dhiibay inuu ka mira dhaliyo oo fikirkiisa ku biiriyo oo naaxiyo oo meeshii la rabay iyo meel ka fog uu geeyo iyo waxay kaloo dhashaa leysinimo inuu qofka gacmaha saarto yiraahdo wax ka soo sameeyo waxa la leeyahay waxaanu waa khaldan yihiin hebel daba fariiso sidaa awgeed qofkii gacmaha saarto marka shaqooyin loo baahnaa dad hawlkala inay qabtaan ayaa fariistay hay-adihiina halkaas ayay xaaladooda maraysaa madaxweynaha waqtigiisii gabagabo uu yahay ayay arrintaan ku soo aadaysaa intaas waa dhinaca negative-ka ahaa positive-ku waa maxay positive-ku waxa ay tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu badda difaacay 2 jeer xilli adag labaduba ay ku soo aadeen labadiiba uu ka dabaashay inkastoo kan Ethiopia dad dhalinyaro ay jiraan haddana overall picture-ku waxa uu yahay in uu ka soo baxay kaalin shariif oo ka qaatay meelna uu saaray isagoo caalamka u adeegsanaya arrintaas siduu u wiiqi lahaa tii horena uu ku guuleystay ee dowladdii nabadii nolol ay soo gabagabaysay laakiin asagu uu ahaa ninkii idabada u ah qodob dhaxaadka u aasay ee in hayg la geeyo sababta u ahaa tii Ethiopia waad ogeed meesha ay kusoo dhamaatay oo mid maanta caga badan ma aha waa tahay Ethiopia weli meeraysanayso badbaadi goobaysa waxa uu haystaa saaxiibna leeyahay madaxweynaha dalka Turkiga madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle amiirka dalka Qatar iyo waliba dowladda Sacuudiga haatan ay isku soo dhawaanayaan dhinaca kale waxaan leeyahay intaas oo wadan ayuu haystaa marka waxaan rabnaa inaan 2 wadan 3 wadan aynu dul istaagno Imaaraadka Qatar iyo Sacuudigu waa dhagaha Trump uu wax ka maqlo oo dana fara badan ayaa isaga xiran in badan waxaad aragteen asagoo amaanaya madaxweynaha dalka Turkiga Trump asagoo amaanaya aad aragteen uu leeyahay Erdogan waa nin ixtiraam hayo waa nin culus weeye waa nin aan laga maarminin la'aantii waxba ima suurtagali lahayn soo Qatar iyo Sacuudiga oo maalgashi fara badan ku sameystay waxaynu ognahay Sacuudiga iyo Qatar Trump inuu maalgashi ku sameynayo dhulka dhisanayo iyo daaro waaweyn uu ka dhisanayo marka waa wadamo uu maqlo madaxweyne xasan sheekh maxamuud aad ay isugu dhow yihiin ayaa leeyahay wadamadan gaar ahaan Turkiga iyo Sacuudiga
oo markaas ay Turkiga iyo yani raahde Qatar iyo Sacuudiga haatan imaaraadka ay sii kala durqiyaan imaaraad Sacuudigana uu arkay madaxweynaha dalka Soomaaliya saaxiib sokeeye oo arrintan kala qayb qaadan kara marka inay u dab qaadaan oo u geeyaan Trump ayay arrintan u egtay ayaa leeyahay shalay khadkii telefoonka ay ku wada hadleen madaxweynaha dalka Turkiga iyo dhigiisa Mareykankuna waxaa la sheegay inkastoo aan xaqiijin karaynin oo anigaan idin la hadlay ay sheegeen madax ka tirsan dowladda Soomaaliya in Donald Trump waxyaalihii uu kala hadlayay Soomaaliya ay ku jirtay inkastoo war saxaafadeedka aan lagu xusinin haddana waxaa muuqata haddana waxay leeyihiin arrintaas waa la gaarsiiyey fariintaas sidoo kale waxaa wada hadlay khadka telefoonka Erdogan iyo Mohammed bin Salman ayaa wada hadlay arrimaha laga wada hadlay Gaza iyo arrimaha gobolka ayaa ka mid ahayd Soomaaliya ma ku jirtay mise kuma jirin at this stage Brit Somali TV cannot clarify that laakiin possibility is quite high haddaba wadamadaas waxay ka soo horjeedaan waxaa laga yaabaa inay istiraadaan maxaad oga tagtay Sisi Washington baa laga biilaa Sisi waxa weeye city duck waxa lagu yiraahdaa afka qalaad waa digaag oo xag ku fadhiyo halka fadhiya oo aan haba yaraatay wuxuu kala goyn karaa ay jireen waxa lagu eedeynayaa inuu nimanka qowl muslimiinka gowda ku haya xabsiyada uu ka buuxiyo halkaana ay markaa reer galbeedku ay ku hayaan marka asagu inuu qayliyo oo yiraahdo arrimaha webiga Niil iyo ka dhiidiyo Soomaaliya xiriir boqolaal sano ayaa naga dhaxeeyay ma ahan dhinac ku goyn kara ma aha ayaa la leeyahay oo maadaama lagu biila asaga iyo boqorka Jordan labaduba waa city duck scale looba ayaa lagu leeyahay waaya aragtidiinu waa maxay gabagabadii ayaanu qarka u saaranahay haddaba dhowrkaas wadan aanu soo sheegnay waxaa lid ku ah ayaa la yiri dowladda imaaraadka xukuumadda Israa'iil iyo AIPAC oo ah markaa loobiga Israa'iil ee Mareykanka awood xad dhaafana kula markaas mid dhaqaale iyo mid saameyn iyo mid siyaasadeed ma kula gudaha dalka Mareykanka iyo waliba siyaasiyiin Mareykana oo xisbiga hadda talada haya dhankooda ka tirsan ayaa u ololeynaya arrintan in ay xanaqaado oo Somaliland intiraaf la gaarsiiyo iyo intaana waxa u dhaxeeya Donald Trump oo ah unpredictable nin aan la qiimeyn karaynin la qiyaasi karaynin waxa ka suurtooba cidna aysan ogeyn hal sentence ayuu asagu isaga hor imaanaya waxa uu lahaa wax ka duwan ayuu oranaya ku xigana intuu yiri in ka duwan ayuu oranaya marka Donald Trump waxa la leeyahay waxa uu afka ka yiraahdo looma qabto ficilkiisa oo kaliya ayaa la eegaya ficilkiisu wuxuu noqon doono we don't know si kastaba ha ahaatee intiraafka Somaliland